marka adigu Cabdinaasir ma isla leedahay hadda inan oo jeceshay in guriga u tagtid ma jirto niyo horta ragga Soomaaliyeed fariin baan u dirayaa aanay ogeyn anna dhalinyaro aan ahay wax badan guriga waa la igu ballamiyay aniga lafteeda arrinkii iigu yaabka badnaa ee maanta ka hor aanan cid la wadaagin ama aanan saxaafadda soo taagin maanta waan bayaaminayaa aad iyo aad aniga maalin habeenada kamida aniga oo jooga Somaliland waxa igu dhacday aniga oo meherad oo saaxiibkay leeyahay kelinka damaan iman jiray waa iska wada fadhiisan jirnay meheradaan la gadgadi jiray gabadhan dukaanka iska baranay dadka wax ka iibsaday aad iyo aad lambaran ka qortay si fiican waa is soo wacnaa adiga ilaa 7 meelaha markaan telefoonkii ka wada hadalay waxay ii sheegtay inay gabadh tahay oo aan la qabin صح waxay ii sheegtay in hooyadeed in aabaheed ka nidi jiro waxay ii sheegtay carruurtoodii iyo hooyadood inay Hargeysa ku maqan yihiin oo ay maqnaanayaan muddo bila waxay ii sheegtay in kaliya gurigeeda joogto ay kaliya tahay habeen kadib waxay tiri kaliya baan waxaan doonayaa barashadeena iyo farxadeena inay inta ka sii badato صح waxaan rajaynayaa caawa 2 saac oo habeenimo ama 8 habeenimo labada luqadood oo ku sheegaya in guriga u timaado xaafadda timaado صح ninkii garanaya oo gobolka Burco xaafadooda waxay ku tahay xaafadaha qasabka صح waan baxay si fiican baan dhalinyaro waad ka garanaysaa waan la bistay taybaan xiday muraayada oo markaan madmadoobaayay socon jiray aan inta saartay waa baxay xaafadii baan aaday miya wax weeyaan hadalku ugu daalini guri laba qola ama nasbalood luqadda riboqooyiga nasbalood lagu yiraahdo luqadda raaxmarka wax lagu yiraahdaa waa laba qol iyo ku jiisuul laba qol ay gabadha ku jirtaa qol jiif baa yaala qol waa fadhi meesha uu saaka ninka toosay iyo gabadh iska bulo ah oo macnaha gabar oo guriga iska joogta way kala duwan yihiin guriga hadaan hadda cid ku sheegin qolkii hurdada gabadh albaabkii baan istaagay lamarkeedii baan wacay waa iga qabatay adiga xaafadda xagee ku taala waxa soo dhan markaan soo adiga xaafadii waa tagay si fiican ala kulli xal waxa dhacday albaabkii iga furtay qol hurdo aan qolkii fadhiga ahayn ayay albaabka saa u furtay waa galay sariir laba birkimo oo katamaan oo dharka la sudho ayaa yaala waa guri kala kacsan oo aad garanayso in gurigani uu guri yahay sax uu saaka ninka toosay aad iyo aad judhiba gurigan indhaha saa u mariyay katamaanka saa u furiyay maxamed saacad cadaad muddo saaka la bixiyay ayaa halkaas soo aaran waa gartay judhiba dareenkayga ayaa istaagay waxba maan su'aal iyo barabalin ma gelin shaydaanka iska naar maxaa kugu dhacay indha la taagaysa ma waa si caadi qof kasta meel uu ku cusbiyo haduu soo galo indha taagu wuu iska imanaya laakiin waa nagaanaya insha Allah subhan waa iga go'aya hadii uu tashi haysto wuu iga go'aya ala kulli xaal muddo 20 daqiiqo hadaan meeshii fadhinay ayaa albaabkii la soo garaacay sax gaw gurigu luuq la galo iyo meel lagu baxsado ma jirto waa laba qol iyo suuli iyo kicho hal albaab buu leeyahay subhan ganjeel gaari gala iyo meel luuq iyo laga baxay ma jirto waxaas ma jiraan aad iyo aad albaabka la soo garaacay su'aal baan su'aalay waxa ku albaabka yaa garaacaya ma fahamni ba waxa tiri wallahi waa ninkaygii wallahi waa ninkaygii aniga hadal aan hadlo wallahi waa ninkaygii hadal aan hadlo markaas ay ugu dambeysay sax waa jabka qarsoon ee maanta aan la wadaagayo saxaafadda ama media waa gartay waxaa sameeyay qof oo biyo lagu shubay oo caaga cawaqooda ayaa noqday saasaan iskaga fadhiyay yadii waa kacday gacantay qabatay waa gartay gacanta markay qabatay gabadhu waxay gashan tahay dirac loo yaqaano haafbac sax luqadda kulli reeyoqooyiga haafbac baa loo yaqaanaa sax haddii laba qof la dhex geliyo iyadoo markay gashato laba qof oo kale haddii ay dhex geliso lama arkayo waa gartay halkaasuu kala maraya ma diric ma raakashay ma dhex gelinay dhageyso kaasii sidataa gacantay qabatay waa gartay albaabkii ninkuu garaacay ayay ila aaday sax awood aan ku hadla iyo xagaad ugu wadaay waxaas dhan ma jiraan hadal dhan ma iga soo baxayo albaabku ninkii garanaya albaabka gurigu waa laba fardadood waa laba albaabo midba mar bay furantaa sax yaala midba way iska xiran tahay lama furo ilaa oo macnaha fadhiyo iyo wax guriga lagu soo xareeynayo maahan lama furo laakiin bulshadu ama xaafadda cid adeegsanaysa oo albaabka fardada laga furo garsi gabadhi fardadii xidhnayd ma ahaana tii furmaysay laabmaysay halkay ku laabanto ayay isaa istaagtay kadibna madaxay hadal ma jiro saasay ku tiri waa fadhiistay markaas saasaan fadhiistay markaan fadhiistay diriceedii haafaac ahayd ayay saa u soo qabatay saasay igu sii daysay waa gartay
kadib albaabkii ayay faka siisay daaradan waxa ku xidhan nal oo aan weynayn diracanna googaradii wax ma ku dhex jiray laakiin dirac bis ayaa ku dhex jiraa diraca markaad sidaa u fiiriso darbigii ama qofka ku dhaafaya caadaad u arkaysa khafiif waa bac khafiif oo kale anigii saasaan u fadhiyaa albaabkii fag hal fardadaa la furay nin oo qolada surwaal gaabta ah oo garhka dhuudhuuban oo wadaada ayaa albaabkii ka soo galay salaamu calaykum xabiibi see tahay maasha allah waa fiican xaaladda ka warran ninkii intaasuu yidhi waa socday indhahaan la raacay saasaan indhaha u wareejiyey qolkii aan ka soo baxay laba kabood oo buudu gashan yahay taa uu suulku iskaga reebay tii kalena kabta liifkeeduu ku reebay qolkaan ka soo baxay buu galay markuu galay diricii bay saa iiga soo laabatay waan kacay albaabkii baa ka baxay wax kale ma siidato googaraday qabtaa laakiin googaradii dhinac dirac baa u dhexeeya aniga dirac bis macnaa kowdhe waan baxay niyow markaan baxay waxaan ogaaday aniga markaan nin xaasila maan ahayn waxaan laakiin ogaaday ragga Soomaaliyeed khiyaamo macnaha ay xaasilayaasha dhib haysatay inay tahay sababta aniga xaafada adeeriday leeyihiin ama uu family leeyahay ama ay asxaab leeyihiin ama nin xaaskiisiba aan xilli dambe oo macnaha la hurdo tagay oo macnaha aan xaafadiisa u raacay albaabka gabadhiisa markay naga furto bartii ay habeenka gabadhu taagnayd ee ay igu qarisay gabar kasta albaabka ninkeeda way ka furaysaa bartii taagantay inay nin qarinayso iyo inay waxaysan lama yaqaan niyo raga xaasliyaasha horta fariinta aan u dirayaa waxay tahay horta nin kasta oo xaasla habeenkii gurigaaga markaad aado laga furo boqolkiiba 90 xaaskaaga albaabka ka furta waxaad u fiirsataa xaaskaaga markay albaabka ka furto ma gacantay ku qabsataa albaabka xidhaa way ku raacdaa mise meeshii iyadoo taagan baad adigu qolkaagii iska gashaa muhiimiyadu waxa waaye adigoo iyadoo gabadha halkii albaabkii haysata ayaad adigu qolkaagii iska gashaa shaati iyo waxbaad iska sii bixisaa kadib iyadoo albaabkii soo xidhay ayay ku timaadaa inay cid ku dhaafisay inay allaahuma ana beedahay oo kaligeed horta lama yaqaan raga xaasilayaasha arrinkaas waxaan leeyahay wax loo adkeysan kara maaha waa sir maanta aan sheegayo maadaama 24 saacadoodba dumarku ay sirta ragga duulimaad ku yihiin waxaan leeyahay war raggu inaynu haystarno iskalkaalino waa muhiim fariintaasaan anigu maanta dirayaa adiga aad ma ku salaamaya Adnaas raada maasta saaxib thank you so much